بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولو قال ارتجعتك اليوم وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك تصدقها إلا أن تقر بعد ذلك فتكون كمن جحد حقا ثم أقر به. walow qaala ninkii haddii uu yidhaahdo xaaskiisa uu ku yidhaha irtajactuki waan ku soo celiyey alyowma, maanta wixii ka dambeeyay xaaskaygaa tahay, dalaaqii waa ka noqday. wa qaalad waxay tihi inqadat ciddatii baa dhammaatay qabla rajcatuka, intaadan isoo cishanin. waa anigana waxaan shalay maanta ma soo cishanin, shalaa iigu dambeysay ciddadaydi waa dhammaatay, maanta anigoo oo qof baa-in ah yaad isoo cishatay bay tiri. sadaqahaa, hadalkaas ayadaa loo rumaynayaa liannahaa saaxibat lcidda walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihina, dadkii lagu yiri bay ku jirta. ilaa an tuqira, inay qirta maahine bacda dalika oy tiraahda maya ciddadayda shalay go-daan ku iri maya ma jirin, adigaan si kale ila aheyd, laakiin rajcadaadii kadib bay iga go-do xaaskaadii baan ahay bay tiri, waa ogolaatay. saas hadday tiraahdo fatakuunu naagti waxay noqonaysaa kaman jaxada xaqa, nin xaq oo lagu leeyahay diiday, uma aqara bihi, marka iqraarkiisa waa la aqbalaa. ninkaanaa yihi ninkan war 100 baan kugu leeyahay oo aan ku daymi iguma lihid uu yihi. markuu inkiri kadib aa layihi markhaati ma haystaa, maya asaa kuu dhaaranay, saasaa la xukmi. kadib baa waxa weeyaan intuu ninka isku laabtay waasiciisa diini abaa qawi noqdo, wuxuu iri war maya niyaa 100 waad igu leedahay. marka inkirkii hore u inkiray wax ka soo qaad male, alcibratu biliqraar waay, saasuu yiri imaamu shaafici. masalada meeshaasuu ka maray. qaala almusaniy qultu ana lam yuqiraa jamiica walaa axaduhumaa binqidaa'i alciddati xata irtajaca azawju wasaarat imra'atahu falaysa lahaa cindii naqdu maa habata calayha lahu. kalaam oo imaamu shaafici uu ku caaridayo. qultu ana waxaan ihi lam yuqiraa jamiican, labadoodii ma wada qiranin, walaa axaduhumaa midkooda binqidaa'i alciddati, ciddadii inay dhammaatay iskuma ayna waafaqin, midkoodna ma sheeganin. xataa irtajaca azawju, ninkii intuu ka soo cishto oo wasaarat imratahu ay noqotay. ninkaa markuu waxaa leey rajcadiisaa horeysay qabla inkaarihaa wa qabla tasdiiqihaa. asigaa yihi, asaa hadalkii bilaabay, wuxuu ihi aniga waa ku soo cishtay maanta, kadib ay ayada bilowday ictiraad. marka ayada labadoodi isma waafaqinoo ciddadeedii intayna dhammaanin baad isoo cishay, iskuma waafaqin. walaa iskuma waafaqin midkood inuu hore ka sheegay, laakiin ninka rajcadiisaa horeysay. markuu ninkii yihi irtajactu lyowma, yay bilowday ayadana inay caaridto. markii irtajactu lyowma uu yihi ayada ay caaridaysa, naag bayba u tahayba. wuxuu leh xata irtajaca zawju wasaarat imra'atahu, naagtiisay noqotay. falaysa lahaa, naagti ma laha cindii anigoo musani ah, naqdu maa habata calayha, wixii ayada ku dul sugnaado lahu lizawji u sugnaaday inay diidda ma laha oo ay buriso. kalaamka oo musani fii gayri maxalihi, alxaqu yuqaal. liannahu mujarad ou ninkii ku hormaray anaa ku soo cishtay, naa kuma noqonayso. liannahu haddii ay sida sheegay ay tahay uu maantaan ku soo cishtay, shalay anigana ciddadii iigu dambeysa hadday ay tiraahdo, marka xataa saarad imratahu say ku noqonaysaa. maanta hiya khaarij alcidda, waaba naa kaloo baa-in ka ah. marka hadalkan musayin mujarad taqadumi lafdi macno ma keenayso. nin hadda oo waxba aan kaa qabin, yaa 100 kugu leeyahay, haddaan ihahdo aniga igumalid aan ihahdo kownuu iddacaa ana lahu calaya 1000 uu iiga hormaray, xoolo ma ku yeeshanayo, aniga uma qirin, naagti ma ayna qirin. ayadaa caarito waxay tiri maanta bilaashaad ii soo cishatay, liannahu maba ahiba qof cidda ku jirto rajca saalixa u ah. marka kalaamkaas kalaam gayru maqbuul nihaa'iyan. وqاaل الشhاaفiعي wlow اrtadت
bacda طalaaqihi faاrtajacaha murtadaة fi اlcidati lam takun rajcata liannaha taxlilu fi xaali الtaxriim walow irtadat hadday gaalowdo bacda طalaaqihi ninkii waa furay طalaaquu ku furay marka cidday geli lahayd intay ciddadii geli laheeda islaamka ka baxday furqaa timid marka cidda loomaba baahnabo naag gaalaa cidda kuma yeeshanaysid ayib marka wuxuu iri faاrtajacahaa murtadata fi اlciddati ayadoo ciddadii ku jirto oo gaala ayuu soo ceshtay marka wuxuu iri lam takun rajcatan ma noqoto liannahaa taxliilu fi xaali الtaxriim liannahu hadduu riddo ku soo ceshto naag gaale e ma u noqon kartaa zawjadiisa maya marka irtijaaci muxuu taray saasuu leeyahay naagtii oo ciddada ku jirtay oo la soo ceshtay fa hiya gayru saalixa liannahu waxaa yimid maa huwa akbar wa huwa alkufru marka kufrina kuma banaano marka imaamu shaafici kale ma tafsiilin oo ma dhihin waa la sugayaa ilaa ciddada ay ka dhammaatay inay gaalnimada ku adkaysato haddii ciddadeedii dhammaato iyadoo gaalo ah ciddadina laguma soo cesho karo ciddadii hadday dhammaatayna lama soo cesho karabo marka taas lagalama tafsiilin musani marka fiiri waa ku ictiraaday qaala almusaniyu ashbahu biqowlihi cindii an takuuna rajcatuhu mawquufatan fain jamacahuma alislaamu qabla inqidaa'i alciddati min xiina waqaca طalaaqu kaanat rajcatan buuri imaamu lmusani tafsiil uu geliyey naagtii la furo oo rajca ku jirto gaalnimo haddii laga helo waaba dhammaatay lama dhahayo buu leeyay waa la fiirinaya maxay noqonaysaa an takuuna rajcatuhu mawquufa naagtii soo macisho kartid waa la sugayaa fain jamacahuma alislaamu hadduu islaamka jamciyo qabla inqidaa'i alciddati ciddada intayna dhammaanin min xiina waqaca طalaaqu kaanat rajcatan bay noqotaa wuxuu leeyahay naagtii waa gaalowday waad furtay kadib ay gaalowday hore furqada kan macayse waxaa la fiirinaya ciddada inta ku jirto in islaamka kusoo laabato marka waa la sugaa hadday ciddadii oo weli wax ka dhimin islaamka kusoo laabato marka nin naag furay طalaaq rajci ku furay haddana ay muslim tahay waa soo rajciyeysa karaa buu leeyahy haddii laakiin ay caddaato oo intay ciddada ku jirta gaalnimada ku adkaysatay ilaa ciddada ka dhammaato waa sax sida imaamu shaafici sheegay noqonaysaa wain lam yajmachuma alislaamu calimna annahu laa rajcata markaa rajca ma jirto hadday qofkii gaalnimada ku adkaysata lianna alfaskha min xiina irtadat markay gaalowday baa faskiga dhacay kamaa yaquulu fi طalaaqi sow uu leeyahay idaa طalaqahaa murtadatan aw wathaniyatan fajamacahuma alislaamu qabla inqidaa'i alciddati calimna ana aطalaaqa kaana waaqican taas waxaa ka fiicneed inuu yiraahdo aantiisa horta dhammayno kamaa yaquulu shaafici sow leey fi طalaaqi idaa طalaqahaa murtadatan aydoo gaalo abuu furay aw wathaniyatan fajamacahuma alislaamu qabla inqidaa'i alciddati calimnaa ana aطalaaqa kaana waaqican markuu furayey hadday gaalo tahay طalaaqu ma dhacay liannahu طalaaq wax ka weynaa yimid oo furqo oo gaalnimo ah ayb laakiin islaamkii hadday ku soo laabato طalaaqi markaasou dhaca liannahaa saarat maxalan liطalaaq naag gaale e lama furi karee markay muslim noqoto oy ciddadii ku jirto maalinkaasuu طalaaqii mucallaq ah oo naagaal ku dhici waayo markay islaamku soo noqoto ku dhacayaa buu leeyahy wain lam yajmachuma alislaamu islaamkii hadduu kulmi waayane baطala طalaaqu طalaaqi waa buray wa kaanat alciddatu waxay noqonaysaa min xiina aslama mutaqadimu lislaami minhumaa ciddadii waxaa laga bilaabayaa min xiina aslama markuu islaamo mutaqadimu lislaami minhumaa
ninkii iyo naagta midkii islaamkeedu hormaro ninkii uu soo hormaraa ciddadii lagu waxaa la leeyahay baqiya lahu maa yugayibuhu baa la yihi ninka haddii dakarkiisa qeyb maqan yahay inay qeyb uu harto qeybtaasna wax ay geli karto oo nin aan la mid ahayn xaniyaha laga bixiyey wa sawaaءun kulu zawjin wa zawja arrintaasna ninkii i naagta waa u siman yihiin oo hadduu ninkii wax geli waayo lam yaxsul bihi alcusayla haddii ninkii wax geli kara laakiin meeshii naagtii laga geli lahay ay joogin ayadana waa la mid waxaa la leeyahay ma dhicin nikaax oo ninkii hore ay ugu banaanaan karto marka cudurka yumkin an yaأtiya min qibali الزawj wa yumkin an yaأtiya min qibaliha intaba waa dhici kartaa walow asaabahaa saa'imata aw muxaramata asaa'a waqad axalahaa yani jimaacaas inuu xalaal yahay shardi ma ah bal wuxuu leeyahay ninkii labaad oo naagta guursaday low asaabahaa saa'imatan iyadoo sooman oo in la jamaaca ay banaaneen soom fardi ah waaye aw muxrimatan dheh ama iyadoo xaj xarmatay asaa'a ninkaas dembi buu galo waa xumeey laakiin waqad axalahaa ninkii hore waa u baneey nin baa naag soo furay saddex buu ku furay nin kale ay guursatay ninka kale guursatay ama iyadoo sooman u jimaacay ama iyadoo muxrim ah taxliilka waa ku dhacaya dembigii kale na waa loo haystaa ninkan oo naagtii nin oo saaim ah naag saa'ima u galmooday dembigeedii soonkii faradka buu ka fasaadiyey waa loo haystaa ama ixraamkuu fasaadiyeyna waa lamid iyadana waa loo haystaa laakiin taxliilka waa ku dhacayaa oo xataa taduuqii cusaylatahu bay soo gelaysaa marka shaygaa inuu muxaram yani waa shay an yataratab caleyhi xukmu taxliilna waa shay kale marka labadaas layskuma haysto walow asaaba dhimiyata zawju dhimiyin binikaaxin صaxiix axalahaa limuslimin liannahu zawjun walow asaabahaa dhimiyata naagtii dhimiyadeeda ahlu kitaabka eed yahuud iyo nasaara oo annaga nagu dhex nooloona ka qaadana cashuur iyou ninkan qabi jiray nin muslim ahanaa kitaabiyaho dhimiyo u qabay ninka muslimka waa furay nin dhimi ah iyay guursatay ayb marka wa asaabahaa ayadina waa macnaha waa jimaacay binikaaxin صaxiix liannahu dadka ahlu dimada fii maa beynahum nikaaxooda muctabar waay axalahaa limuslimin muslimka xalaal bay u noqon kartaa liannahu zawjun waay liannahu naagtaa ninka muslimka ou furay naag gaale oo ahlu kitaaba waa la guursan karaa bishuruudihaa markii la guursado haddii la furo nin kaloo dhimi ay guursato lama dhahayo ninkan waa dhimiye ilaa muslim ay ka guursato kasoo furo lama dhahayo ninba hadduu soo guuro ay u banaan tahay inuu guursado hadduu intuu guursado soo furo oy ciddadii ka baxda ninkii hore muslimka waa guursan karaa maxaa yeelay warajama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yahuudiyeyni wuu nebiga rajmiyey zanayaa iska zinaysteen walaa yurjamu ilaa muxsanan nin muxsan mooye lama rajmiyo macnaha waxa weeyaan inuu nikaaxa yahuudiga uu muctabar yahay lama dhihin adiga yahuudi baa tahay nikaaxyaalkii hore aada usoo gashay wax muctabar male gaal baa tahay ictibaar male marka nin oo bikri ah waa lagu jeldinaa lama dhahay laakiin maadaama la rajmiyey nikaaxuu soo galay inuu saxiixay daliil u tahay liannahu ninka muslimka ah hadduu nikaax saxiixa uusan hore u soo gelin zina hadduu galo lama rajminayo aلzaaniyatu wazaaniya fajliduu kula waaxidi minhumaa 100 jalda baa la leeyahay marka kownu nabiy rajama alyahuudiyeyni daliilu calaa ana nikaaxahumaa qabla azina kaana saxiixan
saasuu ula jeedaa maxalu shaahidka waa intaas weeyaan. ayb qaala walow kaanat اlisaabatu bacda ridati axadihimaa ثuma rajaca اlmurtadu minhumaa lam tuxilahuma اlisaabatu liأnnaha muxaramaة fi tilka اlxaal. wuxuu iri walow kaanat اlisaabatu naagta markii la jimaacay hadday tahay bacda ridati axadihimaa aa la jimaacay ثuma rajaca almurtadu midkoodii oo gaaloobay baa soo noqday minhumaa min الزawjayni lam tuxilahaa alisaabatu ma banaynaysa tegidda loo tegay liannahaa muxaramaة fi tilka alxaal. nin baa naa qabay طalaaq baa-inuu ku furay gaal bay noqotay iyadoo gaalo ah yaa nin kaloo gaal ee guursatay oo loo galmooday. intay gaalada tahay galmooshada loo galmooday macno ma leh. marka galmooshadaas yacni binikaax aw bizina labadaba wax ka soo qaad ma leh. maxaa yeelay waxaa lii liannahaa lam tuxilahuma alisaabatu liannahaa muxaramaة fi tilka alxaal. naag murtada ah si ay xalaal ku noqonaysa ma laha, allaahuma ilaa in la yihahdo murtad kale ay guursatay kadib ay soo islaamtay. naagtaas murtadada ah ninkaas oo u galmooday muctabar ma aha, saasuu imaamu shaafici qabaa. laakiin fi hadihi almas'ala ninka murtadka ah haddii aan niraado nikaaxiisa ma jiro fiihi nadar, liannahu nin murtad ah iyo naag murtada hadday isguursadaan haddii ay marka horeba islaam ka baxeen macnaha imaamu shaafici wuxuu qabaa yajibu calayhimaa xaddu lqatli. guur iyo wax kale maba lahaba, qof ila dili rabay waaye. marka muctabar maaha ficilkeedao dhan sidaasa ayuu ka milacsanaya. wallahu aclam. waa arrin macquul ah taasna. imaamu اlmusani qaala اlmusani qultu ana laa macnaa lirujuuci اlmurtadi minhumaa cindahu fayasixu nikaaxu baynahumaa ila fi alatii qad axalahaa isaabatu iyaha lizawji qablahu. ayb wuxuu leeyahy laa macnaa lirujuuci اlmurtadi minhumaa. imaamu shaafici labadii isqabtay midkood hadduu ridoobo ou islaamka u soo laabto, soo laabashadaas wax ay samayn karta ma leh cindahu cinda shaafici oo fayasixu nikaaxu baynahumaa, nikaaxooda ay ansaxaan. ayb ilaa fi alatii qad axalahaa isaabatuhu iyaaha lizawji qablahu. ilaa fi latii naagti mooye qad axalahaa ou xalaal yeelay isaabatuhu naagta markuu jimaacay iyaaha lizawji qablahu zawjkii ka horeeyey. marka wuxuu leeyahay naag hadday inta la furo oy ridowdo, imaamu shaafici wuxuu qabaa si isugu soo noqonayaan ma jirto. waa tii masaladii hore uu musani ku khilaafay. fain kaanat gayra madkuulin bihaa, naagta ridowday mid loo galmooday haddaysan ahayn faqad infasakha nikaaxu fii qowli shaafici. naag baa aada qabtay markaasaad furtay, marka la furay hadday ka hor nikaax hadday ridowdo alfurqatu biridati laa biطalaaqi walahaa mahru mihliha bilisaabati. kadib hadduu asiibane mahru mithli bay ku leedahay. taas waa la fahmay. naagtii oo aadan furin yaa gaalowday kadib uu u galmooday, galmooshadaas xaaraam waay. mahru mithli bay ku leedahay. ninkana waa loo fiirinaa oo hadduu muxsan yahayna waa la rajminaa, haddii kale jaldi. wain kaanat madkuula bihaa,
naag oo hadda ka hor loo galmooday haddii la furo ay ridowdo faqad axalahaa isaabatuhu iyaaha ninkan labaad haddii uu jimaaco qabla riddati hadduu jimaaco fakayfa laa yuxiluhaa taa masalada hadda masala imaam shaafici lagu qabsan kara ma ah naagtan mathalan nin baa furay talaaq baa-in ku furay dhib ma laha iyadoo muslim ah nin kale guursaday ninkaas kaloo guursaday naag iyadoo muslimad ah soo guursaday oo u galmooday kadib ay naagti ridowday haddii ay ninkan dambe way kala tegayaan riddadaas daraaddeed kadib ay islaamka u laabatay bacda alcidda islaamka u laabatay ninkii hore waa guursan kartaa liannahu ninkan labaad iyadoo muslimad ah uu u galmooday si loogu diidi kara ma jirto mas'aladaas marka imaamu shaafici tafsiil ma gelinin oo wuxuu qabaa haddiiba ay baridowdo mar damba dib isuguma noqon karaan musani wuxuu leeyahay riddadaas hadday ka horeysay galmo iyo nikaax kadib ay ridowdo islaamka ku laabatay ninkii hore waa u noqon kartaa waxaan umalaynaha inuu qowlka shaafici haddii tafsiilkaas la geliya inuu isdiidayni qaala shaaficiyu walow dakarat annahaa nukixat nikaaxan صaxiixan wa usiibat walaa yaclamu xallat lahu fain waqaca fii qalbihi annaha kaadibat falwaracu an laa yafcala waa masalo oo tafriic aho ka dabageyn a waay walow dakarat nin baa naag furay ayib طalaaq baa-in uu ku furay oy ahayd inuusan mar kale guursanin xataa tankixa zawjan gayrahu laakiin ayadaa tiri sow adiga طalaaq baa-in iguma furin haa ani magaalo fulaanan aaday kadaashaa waa guursaday nin baan isqabnay kadib uu i furay ciddadaydi waa dhammaatay hadda waa isguursan karnaa saasay tiri saas markay tiraahdo wadakarat annahaa nukixat nikaaxan صaxiixan wa usiibat waana loo galmooday walaa yaclamu ninkana uusan ogeyn beenteeda iyo runteeda xallat lahu liannahu ayadaa loo aaminayo farjigeeda liannahu wax macquulana waa sheegtay muddaday kasoo wareegtay wax dhan isma diidayaan fain waqaca fii qalbihi hadduu ku dhaco qalbigiisa annahaa kaadibatun been inay sheegayso falwaracu an laa yafcala laakiin sharci ahaan waa u bannaan tahay laakiin waxaa fiican haddiiba ina la geliya inuu iska dhaafo lianna ama ou dalbada bayina inuu yihah waxaad sheegay run inuu tahay bal xaafadii aada joogi jirtay igey dadkii meesha jooga hadday yihah war naagtan waa la qabi jiri inaan qabi jiri waana furay wakada sax laakiin wax kalaa la waayay ayada hadalkeedii aan ahayn meeshii ay ka timidna lama ogaan karo marka inuu hadalkeeda u rumeeyo guursadana waa leeyahay inuu shakigaas ictibaar siiyo yihahdo alwaracu laa yakfaa inuu yihahdo war idhaaf waxba kaama rabe kuma guursanani saasaa wanaagsan buu leeyahay wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin.